waxaan gelaynaa maalmo kadib oo maanta yani 27 ay bishu ay tahay 2019 ayaa inoo dhamaanaysa waxaa fooda inagu soo haya 2020 sanadka miilaadiga ah sanadkaas cusub ee inagu soo socda yani dadku haddayna ku baraarugsanayn sanad isbedelkiisu wuxuu yahay in lagu baraarujiyo ayay mudan tahay dadka iska hilmaansan yihiin oo qaflo iyo hilmaan ayay ku jiraan markaas sanad cusub markuu soo galo يعني waa dabaaldeg iyo farxad iyo sanad cusub la soo dhaweynaya ayaa jirta laakiin ma la isweydiiyay maxaan ku faraxsanahay waxaan ku farxayna muxuu yahay waxaan ku farxayna wax kale ma aha haddii cimrigaadi maalan uu ahaa 60 sano tusaalahan intii lagu qoray oo sanad kasta oo dhamaada aad ku faraxsan tahay macnaheedu waxa way minuska aad ku galaya cimrigaaga sanadka laga jaraayo oo qabriga lagu sii dhaweynayo ayaad u dabaaldegaysaa waxaan loo dabaaldegaya marka wax kale ma aha qabrigii baan u dhawaanay ogaada way macnaha marka saas uma arkaan dadku waxay maleeyaan wax u soo kordhay oo ziyaada ah laakiin waxayna ogeyn minuska iyo balaaska kala garanaynin marka sanadku markuu dhamaado oo koo kale uu soo galaayo ma sanad ba ma balaas ba mise waa minus oo cimrigaagii sanad ka mid ah ayaa minus laga jaray hadda 2019 markaynu soo gaarin wuu ku dhimanaa oo sanad ku dhiman oo cimriga ka mid ayuu ahaa waa la gaaray si kooba maalin loo jiray 2019 way dhamaatay sanadkaas asaga xaguu ku qaabilsan adiga cimriga adduunyada joogi lahay sanad ka mid ah oo minus la geliyay oo laga tuuray ayaa joogtaa kii 20aad ku bilowday waa farxaday marka waxa ku faraxsan tahay mid kale oo minus ay soo galay in soo dhawo sanadkii oo minus ka gelin lahay marka minus is gelin lagu ma farxay waa laga walwalaa oo maxaad ilaahay lagu tagaysa cimrigu wuu socdaa daadi way socotaa maxaan sameeynaa in is weydiiyay tahay sidina kale ummadana Soomaalida waxa rabaa in la fikiro yani mushkiladeenu هذا سنة كلاباتنا بحن جلنا أنت نبتجنيه تام ومدو أي سلاح مرتو يعني نرد له ولا هيستو سيدو ومدوها يميلين بيدو أي شقين يسوع ومد يعني جرتاو الدون كله يصاب تمو سومالي محي قبطان محي تقولنا إن سعيان مقلنا عالم كإنتارين وكم مقلنا الدنيا أنا كيسان وعيار العيار هاي ولا الحياة الدنيا إلا لعب عيارتنا حيكون في عنتها إن لو عياره جرام كيلو ترى جرام لو عياره dhinacyada waxa garoomada kaga sawir waa yartaan xariiqin cad oo banoonigu haduu dhinaca kale uga baxo waxa la fooru baxay ee garoonka uu ka baxay inaga 30 sano ayaan fooro baxsanaa dhammaankan jirnaa meydaankii ama garoonkii gudaha lagu ciyaari lahaa waynu ka maqanaa marka imisa sanad maqnaanayna marka dadku garoonkii ku wada dhex jiraan dawladda leeyihiin nolol fiican ay haystaan inaga maxay loo diiday intaan soo golaano inaan garoonka dhexdiisa ku soo noqono maxaa loo diiday yahay ciyaarta inaan wada ciyaarno maxaa loo qashqashay ilmaha yaryar markay markii banooniga ama loo diido ama see wuxuu leeyahay qashqash banooniga lama dheelaayo 30 sano soo qashqashayni marka ma sii wadayna 30 kale ma ku darnaa waa macnaha mise waxaan waa ceeb tiyaadan tilmaamay markii 91 burburku u dhacay ya 91 يعني بربر كنكو بلوغ وها waxaan isweydiin jirnay talow misan deey la'aan ahaan doonaa marka aan soo marka 94 waxaan ka dhaar ardaydii aaday Suudaan oo waxbarasho meelaha Suudaan waa 4 sano markii oo burburkii uu jiray waxaan isku qancinay maxaa la 4 sano Soomaaliland deey la'aan ma nahayn in saayaan deey la'aan si ahaan karnaa way wala tahay waa niqaash mid waa iska dood markaas dhaarto deey Afrikaan oo burburtay yaa inuu ugu dhow oo haddana ka soo kabatay burburkii markaas waxa dheeyay marka wadanka Uganda markaas waxa dhigay Uganda ayaa inoogu dhow meeqay deey la'aan ahayd markaas waxa 7 sano deey la'aan ahayd kadibna dawladda ayay samaysteen dhinacna way dhaqaaqeen marka waayay hadda 4 sano joogo wasaasan 4 yaa 3 sano oo kale sii joogi karna ma waxaan jirnaa suurtagal ma inaga waan ka duwanay Uganda iyo maxaa yeelay inaga muslimiin islu gooyo sanadaan taaleed waxa la isku xanaaqsan yahay 2 sano 3 sano hadii la kala xanaaq gooyo marka dambe tartiib aqal intuu soo degay baa waxaan ilama anfacaysay muslim isdaayo tartiib aan u wada noolaano ma dawladda aan muslim aan haday 7 sano deelaan ay kadibna isku toostay inaga 7 sano ma gaareen waa inaan ka soke ay waxna toosaan hayadan ma qansi marin 7 sano ka waran 7 sano baa nooga dhamaan lahayd ayaanan qabilayn waxaan sii maraynaa sanadkii 30aad ayaa inoo bilaabanaya maalmo ka bacay 30 sano qofkii markaas dhashay oo dagaalkii la koosay
maanta wuu duqoobay 30 sano jira maxaa u dhiman yani waa kii dhashaad kii 5 sano jiray oo ilmo yar asagoo burburka u dhashay jir ahaa oo hooyadii dhabarka soo saaray laga qaqaxay maanta 30 sano jira 40 waxay laga dhimayaan waa kaasba marka cimrigii intaadu si socona Itoobiya ay xoolo bariyo dhaxyaas oo isticmaalkiiya 7 sano meelahaas ayagana yaa xogaa yaran rafaadeen way iska jareen hadda oo taariikhdu ma jirto waxaan sanadahaas aan rafaadsanin inaga jara wada bila meeqad soo maraysan 2020 ma soo marayaan 17 ay soo marayaan innagana waxaan sii maraynaa way iska jareen innaga soddonka inaga jara goorma soo marayna marka sagaashan soo marayna macnaheedu waxa weeye sagaashan hadaan soo marayno ummadaha horumarkoodana soddonkaas sano ayaan ka dambaynaa marka 30 sano ummad ka dambayso ay ummaduhu ay hore u socdaan innagana aynu dib u socono oo wali aqligu inoo soo deyneen been iyo maxaynu isku haynaa af Soomaaliyeed ku wada hadlaynaa wadankeenu wuu ina qaada oo dad tiro badan oo wadankii uu ka buuxsanayo war xagga iga dur iyo xagga iga sika meel kula dhigaal leeyahay aan dhahayna ma aha hadaa magaalada caasimada ka baxdo intaas oo kiiloomitir oo halkaas wax binaadam oo jooga uu soo jiro iska cillo iska banaana hadana waa ka wala isleenaya oo dagaalada ayaa joogsan marka aqliyadana inaan dagaalan ku jirno ilaa imisa sano soo soconaysa marka balbal aan dib soo noqonadaan sanadahan isbedelay waa inaan aqli ka ziyaadsano dhibaatada aan soo afjar lahayn in laga wada hadlo midda kale sanadahan la xisaabiyo miilaadiga iyo hijriga dadka qaar ka mid ah sanadkan oo aan inagu iska leenahay oo laynaga xigin ayay waxay naga siinayaan dadka muslimka ahayn markaas sanad miilaadi hadii la soo sheego wuxuu ku yahay sanad korta bisha gaalada maanta meeqay maraysaa iyo sanadka gaaladu gaalada waxay leeyihiin ma jirto sanadka waxa waaye wuxuu ka dhashaa habeen iyo maalin isbedelay oo bil dhamaatay bishu markay dhamaato hadana bil kala bilaabanaysa ayadana way dhamaanaysaa 12 bilood markay dhamaadaan sanada dhamaaday sanadka marka aasaaska uu ku aasaasan yahay waa laba qaybood ama habeenka la xisaabiya ama maalinta la xisaabiya oo labadaas hadda midalan sanada wax lagu xisaabsado midka hijriga ah waxa inooga xiran ahkaamta islaamka oo midalan soonka oo shahr ramadaan alladhi unzila fihi alquran ramadaan ma dhashay bishi xagga laga fiiraa bishi ma dhalatay iyo meera dhalanin waa la isku khilaafaa marka waxa la xisaabiyaa habeenka midkan kalena waxa la xisaabiyaa maalinta la xisaabiyaa oo waxa la taariikhdu maanta waa imisa maanta waa maalinta waa qorraxda markaas waa maanta waa 27 inaga isticmaalkeena wuxuu ku badan yahay oo dadku dhan ay yaqaanaan miilaadiga oo dadiliya maanta bishi waa imisa dadku dhan saacad ay fiirin waxa ku dhig maanta ama mobile ku fiirina maanta waa 27 bishii 12aad 2019 hadii la weydiiyo bisha kale maanta misay maraysaa haye subarta waxaan ku jirnaa rabiicu thani miyaha meeqay maraysay waa inuu soo xusuusto ma garan karo bilaas waxaynu xisaabinaa oo kaliya hal bil bishaas waa bisha ramadaanka bilaha kale meeydin intay marayso laakiin ramadaan ma la gaaray ma la soomayaa qofka soo weydiiso maanta soonku waa imisa toddoba maraya oo kule way xisaabanta ilaa ma gaajahays soonku ma dhamaaday bes halkaas inay la egta laakiin bishaan kale saacada inay u qoran tahay yani ijaarkii guryaha maxaa loo kala qaataa bishii way dhamaatay markii la yiraahdo bil kasta waxaad ii imaataa oo kule mesela 25keeda 25 kaas bisha ma fiirinaysid saacada la fiirinay 25 bishii waa la gaaray iyo ijaarkii iska keen nolosheeni qaabeynteeda oo dhan habkaas ayuu noqday marka waxa yar u baahan inaan cadayno sanadka miilaadiga ah horta miilaadi maxaa laga wadaa miilaadi waxa laga wadaa nabi ciise dhashay nabi ciise miyay naga xigaan kuwa mesela nabi ciise raacsanay oo masiixiyiinta la baxay inaga xigaan marka sanadka cusub in la ducaysto yani subax walba adkaartaan akhriyana waxa ku jirta maanta markay soo gasho ilaahay waxa uu diisanaa in maali khayr inooga dhigo waxa Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm nasrahu wa nuruhu wa barakatuhu wa hudahu ayaa ilaahay ku diisanayna sanadka saas oo kale inaan dhahno ilaahay sanadka sanad khayr nooga dhig ilaahay baraka nagu sii ilaahay hanuun iyo islaamnimo ilaahay nagu sii ilaahay waxa kale marka ducana inuu noqdo ee uu san noqonin sida dadka qaarkii sanad ay soo dhaweynayeen intay dhahan
macsiyo iyo munkaraad iyo waxyaabo kale inay ku soo dhaweeyaan oo waxan ay ku faraxsan yihiin waxan ay ku soo dhaweynayaanba ayna garanaynin oo dambi iyo waxyaabahan loo baahnayn ay ku soo dhaweynayaan looga baahnayn waxaa loo baahan yahay cibro qaadasho iyo taariikhdaas oo la xuso iyo habeenkii iyo maalintii isbedelaya iyo sanadahani inay yihiin cimrigeennii qaar ka mida oo go-ay aakharo u sii dhowaanayno xisaabtan iyo ilahay hortiis maxaan geysanaynaa intayna adduunyada aan joogno sideebaan qorshaheena waxaan u samaysanaa ilahay baa saa inoogu talagalan oo bisha markii maalan hijriga laga hadlaayo oo bishii way dhalatay iyo ma dhalanin mar 29 bay ku dhamaataa mar 30 ay ku dhamaataa su'aalaha waxay ka imaatay asxaabta waxay dhaheen rasuulka ilaahay bishu maxay marna 29 u dhamaataa marna ay ugu dhamaataa 30 marka jawaabta ay rabaan waxay ahayd in la yiraahdo haddii waxaas isku aadaanna 30 bay noqotaa haddii waxa isku aadaan oo waxyaabaha kowniga ah ee ilaahay uu abuuray sababta keenta marna 29 marna 30 ayay weydiinayeen taas laakiin hawl u taala maaha dadka ilaahay baa abuurkaas iskale suu rabuuna ka dhigayaa laakiin xigmadda loogu talagalay ayaa dadka la barayaa oo inay shaqo ku qabsadaan ay tahay markaas aayadda quraanka ilaahay waxay ku weydiinayaan yasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilahillati يعني بيش محي مرنا لواتنا سهل النقطة مرنا صدر النقطة بيش طلاشة ذي كان وريسانايا قل هي مواقيت للناس وحد كتر هذا وقت قال غفير صلاة ذاتك وقت يكون حساب صلاة سؤال شاب كي هو يدير محي صدر النقطة محي لواتنا سهل النقطة ساسة النقطة لما دين الحالة بيش الصوماء إذن كميشن كده سؤال دين الحيطة إنا وقت يكون في ستان كوا واحد سوق في ساعة ملك مع الوحرنا مسبيح على الوحرنا أنا ويدينا waxaana jeefka gashay maxaad kartaan idinka lama qas amarka ugu dhaana soo baxso waa intaas uu marka ama xagga saaro maxaa loogu talagalay saacad in waqti lagu fiirsado marka bishan way dhalatay 29 bay ku dhalatay 30 bay ku dhalatay maxaad ka rabtaa adiga bishii way dhalatay bis way dhalatay bila ku dhamaatay bila ku bilaabanaysa